ninka ma u bannaan tahay inuu xaaskiisa naasaheeda nuugo ama carabkiisa xubinka taranka xaaskiisa uu geliyo sidoo kale haweeneyda inay xubinka taranka ee zawjkeeda ay mudmuudsato arrimahaas sheekana loo ramo jazakumullahu khayran. waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka mid ah su-aasha inaad ka yaqyaqsateen inaad ka yaqyaqsanaysaan oo la yaabantihiin baa laga yaabaa. bal qaar idinka mid ah waxaa laga yaabaa inaad leedihiin war waxaa masaajidka loo keenayaa waxaas maxaa sheekha loo weydiin. laakiin in badan oo mujtamaceenna ka mid ah baa masaa-ishan sameeya oo ay haysataa, khaasatan dadka xoogaa iskuullada dhigtay ee yaro ilbaxay. ilbaxnimada iyo tiknolojiyada iyo waxaan adduunyadan la dhex galay, tiknolojiyadu ma keenayn laakiin dhexgalkan adduunyada la dhex galay baa waxaa soo kordhay dhaqamo fara badan oo laga keenay waddamo kale. su-aalayiin marka war wixii waa la arkay oo dadkii baa lagu arkay, telefishinkii baa laga arkay oo dad baa lagu arkay oo gaaladii baa lagu arkay oo joornaaladii baa qoraya oo dadkii mutaqafiinta wax bartay baa akhrinaya. war sheekh maxaa diintu ogoshay maxaysan ogolayn haddii la yidhi soo xaq ila cadday u baahan maaha ya wax walba shareecadu waa inay qeexdo waay, waa xaaraan waa xalaal. taa haddaan kaga gudbo xoogaa dhibsiga aad su-aasha dhibsateen inta haddaan kaga gudbo jawaabteedu wax waaye xubinka taranka ama ka dumarka ha ahaado ama ka ragga ha ahaade afka looma dhoweyn karo. leesh lianna waxa weeye waa maxallu lqadar, meeshu waa meel wasakh, meeshu waa meel wasakh, waa meeshii nijaasaadku ka soo baxayeen, waa meel inta badan jeermis leh. meel noocaas oo kaleetaa afka oo madkhalkii jidhka intiisa keliya calooshii iyo wax uga gelayeena in lala aado maya. wax kale iskaba dhaafay xubinku markuu kaa jahayo waxaa la yidhi wax kale iskaba dhaafay xubinku markuu kaa jahayo waxaa la yidhi gacanta midigta ha ku qabanina. af la aad iskaba dhaafay gacanta midigta ha ku qabanina. masaladaasi marka masale sharcan bannaan ma aha, waana nooc edab darro iyo akhlaaq xumo ah, waa nooc mucaasharo khaldan oo shareecada khilaafsan ah, looguma talagelin. allana tabaaraka wa tacaala xubnaha ayagu isugu talagalay afka xubnihii meesha loogu talagalay ma aha. qodobkaa markaan intaa kaga gudbo mas'alada xigta ee raacsani waxay ahayd ninka xaaskiisa naaskeeda. taa iyada ah lil istimtaac iyo muxuu ahaayey dhib ma leh. taabashada iyo afgelinta iyo muxuu ahaayey salsalaaxidda waa nooc istimtaaca ka mida, wax dhibana ma leh. culimmadu waxay ka doodaan, kutubta fiqiga qortay, culimmadu waxay ka doodaan hadduu caano ka yimaadaanoo uu caanihii nuugoo liqo ma ka furantay mise kama furmin? ma ka furmaysaa mise kama furmayso? cala araajix kama furmayso. leanna caanuhu waxay saameeyaan ilmuhu intuu yar yahay oo naaska nuugayo oo cunto baranin baa caanaha uu nuugaayay ay saameeyaan. laakiin nin weynoo gar leh caanuhu ma saameeyaan, xurmana kama dhalato. allahuma fii xaala khaasa oo xaaladii muxuu ahaayey salim mawla xudayfa fii saxiixi albukhaari xadiidkii xaalo noocaasoo kaleo xaaja ay timaado oo suhayla nebigu ardiciihi taxrumi calayhi xaalad khaasa way taas. amaa asal ahaan mas'aladu waa saasoo caanuhuna wax saamayna ku yeelan maayaan, kana furi maayaan, dalaaq maxaan ujeedaa xadhiggiina jebin maayaan. saas daraaddeed waa istimtaac iska bannaan haddiise ruuxu uu u baahdo khuruujan min alkhilaaf, khuruujan min alkhilaaf si uu uga fogaado khilaafkaba caanaha inuusan liqin ayaa habboon. maadaama khilaaf meeshaa ku jiro caanaha liqitaankooda inuu ka fogaado, ama inta kale
sharcan wax diidahayo ma jiro waa masale istimtaaca ka mid ah shareecadu ay ogolaatay wabillahi tawfiiq